السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن أصحابي مالكستو الجوكتان كسر هذا برنامج كنا قلب نمو ثلاثة تاريخنا يكون بيجا تعيل لحية طبنكا بيش سبتمبر سنة كلا بكون يشتغلات برنامج كنا وحلو كفا فاهين دورنا دقال كلول أي وحو كسعودا مقالة غزة عصا موسى يقدعود لبا والله يسهيا إذا كإسرائيل أيا شيء إني ويركي وقصلا كقادين مقالة غزة إذا عركا يدلك ويرر أي كقادين مقاومتنا waxay sheegayaan inay ku jiraan difaaci ugu adkaa oo ay isku difaaci doonaan xaaladda magaalada Gaza jawiga sidoo yahay abaanduulaha ciidanka Israa'iil oo war soo saaray wasiirka gaashaandhigga oo dhaartay iyo sidoo kale warbixino kale oo aan idin hayo guriga Netanyahu oo mudaharaadayaal ay buux dhaafiyeen sababo la xiriira dagaalka mucaaradka Israa'iil oo ka digay dagaalka la qaaday haddaba dhammaan tafaasiishaas iyo dagaalka socda iyo jawaabta laga filayo muqaawamada iska caabinteeda ee la baxday Casa Musa ama ushii Nabi Muuse waynu sugi doonaa tafaasiisha wixii soo dhacay wararkii ugu horeeyay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinayna intaan ku jirno wixii soo kordha wararana waan idin la socodsiin doonaa meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan waa barnaamijkii galabnimo waxaynu ku bilaabaynaa dagaal aad u qaraar ayaa hadda aan idin hadlayo waxa uu ka dhacayaa magaalada Gaza deegaanka la yiraahdo Madiinatu Gaza ayay soo weerareen taangiyada iyo cirka iyo dhulka waxay yiraahdeen waxaana si rasmi ah u bilownay weerarkii aynu Gaza ku qabsanay haddaba markii ugu horeysa ay weerar noocan qaadaan maya hadda ka hor ay ku dhawaaqeen laakiin muu fashilmay waa tii nagta laga soo saaray haddaba dagaalka hadda socda ee qaraar iyo xaaladdu sida ay tahay iyo wixii laga yiri ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa khasaaraha durbaba dagaalka uu sababay telefishinka Al Jazeera wuxuu yiri 82 ayaa ku shahiiday laga soo bilaabo ilaa saakay aroortii Israa'iil waxay ku dhawaaqday si rasmi ah inay bilowday dagaalkii ay ku qabsanaysay magaalada Gaza haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay 82 Falastiiniyiin ah ayaa saakay ku dhaawacmay 69 kamid ah waxay ku dhinteen magaalada la yiraahdo ama deegaanka Madiinatu Gaza oo dagaal iyo duqeymo aad u culus ay ku hayaan ciidanka Israa'iiliyiinta waxay sheegeen Israa'iiliyiinta in laba ka tirsan guutooyinkooda aadka u tababaran ee militariga ay howlgal ballaaran ka bilaabeen halkaas haddaba waxay sheegeen in howlgalkaasi uu yahay midkii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada Gaza 82 qof ayay maraysaa tirada dhimashada saakay laga soo bilaabo ilaa hadda xaalku marka waad u jeedaan inuu cirka marayo boorka kacaya waxa socda al-yaasiinka lala ordayo Allahu akbar ta socota حسبنا الله ونعم الوكيل كوهيان دتكي وقحيان ولا كلا عرريا والله يسيا مقاومتنا وحي لهذين أنه إسكا عابنتين وحي نوغو مقعدرنين نبي الله موسى عليه السلام أشي سانوغو مقعدرنين أشي موسى وحي هذا عصا موسى لهذا مركا دقال كاسا سعودا هذا قرنا وحا هذلي أباندولها عيدا كإسرائيل ninka la yiraahdo Zamir wuxuu sheegay inay bilaabeen inay gudaha howlgallo ka sameeyaan oo gudaha u galaan magaalada Gaza abaanduulaha ciidanka Israa'iil Iyal Zamir waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ciidamadooda ku amreen inay gudaha galaan magaalada Gaza halkaas oo ay sheegeen inay xudun u tahay dagaalyahanka Hamas وحليه gudaha ayaan u amarnay inay galaan wax lagu hal jiiro leh nimankanu waxay yiraahdeen ayaguna kaalayna soo jiira dadkii masaakiinta ah halka ayaguna waxay leeyihiin
حسبنا الله ونعم الوكيل مر والبا هلكنا لو عرريا دقيمها السعودة وحد عايوا يا بسا هذا بدنك كله وزير كجاشان دقة إسرائيل أي يسقونه هذلي نكل إرادو كاتس وحكوهن جبي إني بربرين دوران ويقول كلا سمي دوران جزء هذه أنا لسيدين سيد ويرو أيش حماس سيدين محابيش تلاقى هيستو قول كلا سمينا ولا يهي جزء حافظ الإرادو جزء قول كلا سمينا هذا لسيدين وياي مركا نمكنوا واحد جبيان وهرر وحي ربان دتك ماشي تشوغا إني لايان wasiiradda arrimaha dibadda ee waddanka Britain ee cusub ayaa ku tilmaantay weerarkaas inuu yahay mid xasuuq cusub iyo dhibaato kala geysanaya waxaana ugu baaqeen Israa'iil inay joojiso laakiin Israa'iil waxa shuma joojinayso waxa leeyahay marka dad khubaro ayaa ka hadlay General Faiz Duwayri oo goordo Al Jazeera laga wareystay wuxuu yiri waa arki doonaa bari ilaa saa dambe dagaalku sida hadduu ku sii socdo iyagoo dib u soo gurtay xaalku ma sahlana halkaas xaafadaha markay dumaan ay ugu fiican yihiin ay leeyihiin nimanka muqaawamada guryihii la dumiyay kulli shubkii iyo dhagaxaantii ayaa waxay noqdeen dhufaysyo kale marka sheekadii oo dhan wareersan haddaba marka ninka ugu sarreeya mucaaradka Israa'iil ayaa isaguna dagaalkan hadda la qaaday wuxuu ka soo saaray war daba Al Jazeera waxay leedahay ninka la yiraahdo Labeed wuxuu cambaareeynayaa weerarka military ee lagu qaaday Gaza journalka la yiraahdo Dacood Axranood wuxuu sheegay hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Labeed ninka la yiraahdo inuu sheegay inaanu wariyay maqlin noloshiisa howlgal military oo aan hadaf siyaasi lahayn wax aan weligay maqlay maahan howlgal military oo wax hadaf siyaasada lahayn xaafado jajaban qabsanayna ciidanka lagu halaaga maxay dad masaakiin oo la haysto oo maxaabiisa nooga jira dadkii la layna ayagii kuwii kala la isku waxaas siyaasad maahan waxaan inama karo ay wadaan siyaasadna laakiin waxaas yaa dhageysanaysa male dhanka kale waxaa la sheegayaa inaanu weli wax wara oo dhanka muqaawamada ka soo baxay jirin laakiin mas'uuliyiin ka tirsan qaybta iclaamka ama warfaafinta Gaza waxay sheegeen in iska caabin daran ay socoto oo markaa jilbaha la isu aastay taangiyadii foodda ayay soo gelin laayihiin dhagaha la iska garaacaya uurada baxaysa qiiqa baxaya waa yaabaysa dagaal aad u qaraar socda cirka ka duqeynayaan isbitaalka Ashifa meel ku dhow oo dadku ay ku gabanayeen ayay duqeeyeen dad badana markaa la kala guraya dhibaatada mushkiladda qaylada meesha ka yeeraysa waa yaabasa haddaba marka dagaalkan iyo tafaasiishiisa iyo khariidadii iyo wixii laga yiri oo Al Jazeera ay soo diyaarinayso goordhow ayaan idinla wadaagi doonaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa guriga Netanyahu oo markii dagaalkan uu bilowday la soo buux dhaafiyay kumanaan dad ah asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo maanta waa talaado haddaba barnaamijka qaybihii ugu dambeeya ku jirnaa barnaamijkeena gabi ahaantii waxaa haysta oo aan idinla wadaagayaa meeshay ku dhammaataba weerarkii ugu weynaa oo Israa'iil ku hanjabi jirtay September aan bilaabaynaa kanaan yeelaynaa oo marka hore intay isku dayeen lagu jabiyay ayay maanta qaadeen Gaza ku qabsanaynaa ay leeyihiin haddaba kumanaan dad ah oo ay ugu horeeyaan ehlada dadka lagu haysto Gaza oo u arka weerarkan in dadkoodii la haystay iyo kuwii haystayba uu khatar ku yahay oo la dili karo ayaa guriga wax isku balansadeen Netanyahu haddaba arrintu soo warbixin goordhow soo baxday Al Jazeera waxay leedahay ehlada dadka lagu haysto laga haysto Israa'iiliyiinta ayaa waxay mudaaharaad isugu soo baxeen afaafka hore guriga Netanyahu haddaba dadkan mudaaharaadaya ayaa waxaa la sheegay inay markaa u soo baxeen in ay codsanayaan in la joojiyo dagaalkan la qaaday bayaan rasmi ah oo ay dadkan soo saareen waxay ugu baaqeen shacabka Israa'iil guud ahaantiis inay isbarbar taagaan iyaga si markaa ay u yimaadaan guriga Netanyahu iyadoo la dalbanayo dagaalkan khatarta ku ah maxaabiista in la joojiyo oo jeedaan
xaalku halkaasuu maraa meeshii ugu xumeyd ee xaaladdu maraysaa gurigii waa lasoo dhoobtay kumanaan dad ah ayaa meel la kala geeyey lalayahay booliiskii iyaga waa lays hortaagan yahay netanyahu gurigiisa laysku ballansaday dagaalkii gaza waa kulul yahay xaalku marka meel halisu maraya dadkii shacabka ahaa ee reer gaza ilaahay baa u maqan 1 milyan dad ka badan ayay leedahay aljaziira ayaa meesha lagu dagaalamayo yiri kama baxayno xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ku haya quraankooda ay akhrisanayaan jilbahay aastaan markii weerarkan sidaan oo kala dhaco waxa lagu leeyahay nin walba kitaabkiisu qaadanaya markaasuu xagga la fariisanaya marka xaalku dagaalku wuu socdaa si qaraar u socdaa barnaamijka dambe ee caawa ayaan idinkugu faahfaahin doonaa warar aad aan soo ururiyey meesha wax marayaan sida nagta la isaga saaray wixii dhan idin keeni doonaa barnaamijkaygii galabta akhyaaray waa naga intaa kii saaki uu naga baaqday raalli ahaada maalmahan safar yara ku jira marka dulqaata barnaamijyada qaar mar waa iska mashquulaya odaga like gareeya oo share gareeya nabadgelyo